weli ma isweydiisay meesha ay ka imaaday asal ahaan koofiyadda qalinjebinta? warbixinteena maanta waxaan uga hadli doonaa meesha ay asal ahaan ka imaaday koofiyadda qalinjebinta ama waxa loogu yeero graduation hat. koofiyadan qalinjebinta iyo dareeskan cabaayadda madow waxay astaan rasmi ah ka noqdeen xaflad kasta oo qalinjebin jaamacadeed ah. tani ayaa ah bilowga aasaaska jaamacadaha reer Yurub ee gacanta ku hayeen wadaadadii kaniisadaha qarnigii 12aad iyo kii 13aad. marka hore inta aanan mowduuca u gudagelin waxaa jiro aragtiyo dhowr ah oo isdiidan oo la xiriira meesha asal ahaan ay ka imaaday koofiyadda qalinjebinta. aragtida koowaad waxay oranaysaa dharka madow ee cabaayadda iyo koofiyadda qalinjebinta waa astaan ama calaamad lagu garan jiray wadaadadii kaatooliga ahaa ee nasaarada marka ay gaaraan darajada sare ee xagga kaniisadda, oo waxaa dhaqan u ahayd wadaadada kaniisadda qarnigii 14aad iyo kii 15aad ardayga dhammaysta waxbarashadiisa dhanka kaniisadda darajo sarena ka gaara kitaabka injiil ama baybalka oo uu noqdo raahib inuu ku labisan jiray dareeskan cabaayadda madow iyo koofiyadda qalinjebinta. aragtida labaad waxa ay leedahay sida laga soo xigtay jaamacadda Columbia, dareeskan cabaayadda iyo koofiyadda qalinjebinta waxay ahaayeen uniform ay xiran jireen ardayda muddadii uu socday dagaalkii sokeeye inta ay ku sugan yihiin goobaha waxbarasho. sidoo kale waxaa la leeyahay cabaayadahan iyo koofiyadahan waxay ahaayeen dhar ay ardaydu kaga gaashaaman jireen qabowga daran maadaama xilligaas dhismayaasha goobaha waxbarasho aysan lahayn nidaamka mukeefyada ee diirimaadka keena. aragtida saddexaad waxay leedahay mid ka duwan kuwii aan hadda ka soo sheekeynay oo waxay oranaysaa koofiyadan qalinjebinta waa aalad shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaasha ay u isticmaali jireen inay ku qaadaan shamiitada iyo carrada. xariga ka laalaada koofiyadda maxuu macno ahaan ka turjumayaa? xariga ka laalaada koofiyadda macno ahaan waxa uu ka dhigan yahay ayaa la leeyahay in lagu kala saaro darajooyinka qofka maadaama darajo kasta ay leedahay midab u gooniya. maxaa ku kalifaya ardayda inay koofiyadan kor u tuuraan? dhaqanka noocaani ah oo ah in koofiyadda kor loo tuuro ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 1912 waxaana la rumaysan yahay in markii ugu horreysay ay bilaabeen ardayda jaamacadda Annapolis ee waddanka Mareykanka, halkaas oo marka ay ardaydu ka qalinjebiyaan jaamacadda ay koofiyadda kor u tuuri jireen. xilligaasi kadibna waxa ay noqotay dhaqan ay raacaan dugsiyada dhexe, kuwa sare iyo weliba jaamacadaha oo idil. ugu dambeyntii waxaan ku soo gunaanadayaa qodobka ugu muhiimsan oo ah muslimiinta Andalus joogay xilligaas markii ay qalinjebiyaan inay astaan u ahayd kitaabka Quraanka Kariimka ah madaxana ay saaran jireen iyagoo oo aqrinaya qowlka Alle wa fawqa kulli dhi cilmin caliim. laakiin arrinkaasi inuu jiro wax daliil ah ama xaqiiqa uma hayno, waxaanu leenahay Allahu a'lam. haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray like dheh, sidoo kalena asxaabtaada kale u share garee. sidoo kale asxaabta waxaan idinka codsanayaa inaad koobi linkiga ii taabataan. mahadsanidin.